kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel kusoo dhawaada channelkeena xigashada wararka fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena gambaleelka furo si aad u ogaato warbixinada iyo wararkaana halkan soo gelino. Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta daawad la sheegay in qoyska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga u ciiday Injineer Faysal Cali Waraabe, waxaana uu madaxweynaha ugu baaqay suldaanku inuu arrimahaas uu faraha kala baxo. waxaan u arkaa arrin dhibaato leh, dhibaatana keeni karta. anigu waxaan leeyahay madaxweynaha war tartankii haddaad ragga ka badisay in deel aad ku tiiqtiiqsato waa foolxumo. ragga tartankii ka badisay inaad xadhig ugu darto lagaama eegeyn, inaad waxla qabataa lagaa sugay, waayo doorashada ma iman doonta. taasaa faarle cajiiba keeni doontaa dhowto. ninku madaxweynaha hadduu kugula tartamay dee waa madaxweyne baad xidhay, madaxweyne xidhana lama arag. oo dowladii hore soo maray Somaliland dee raggii madaxweynayaasha ama xidhan raggii mucaaradka markaa ku ahaa. waxaan leeyahay ahdaabta mucaaradku inay wax tilmaamaan xaq bay u leeyihiin. wixii qaldanay markaa xukuumadda talada haysa ay ku dhaliilayaan xaq bay u leeyihiin, ay ku cadaynayaan. haddii la yidhi qoyska madaxtooyaday ka fushay arrintaasi dee waxa weeye nin waliba qoys buu ka dhashay, dee qoysna qoys ma xidhi karo. laakiin waxaan isku xidhi karnaa wax sharciya, waayo mushkiladay sababi doontaa way ka weynaan doontaa intaan lagu soo dooran. markii aad mucaaridka ahayd adaaba dadka waxaa ka sheegi jiray qoyska madaxweyne arrinka mucaaridnimadii ku soo martay dadka mucaaridkee wax walba ku hadlaya dee inaad nabadgeliso weeye. tartankii haddaad ka badisay od heshay. suldaanku waxa uu ku baaqay in la sii daayo xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID Maxamuud Cali Salebaan Ramaax oo Hargeysa ku xidhan. waxaan odhan lahaa arrintiisa maadaama ninkii haystay uu sii daayay inay xukuumadduna faraha ka qaado ay soo dayso oo xorriyaddiisa loo celiyo.